khilaafka dhinaca doorashooyinka Soomaaliland ayaa wali taagan iyadoo wax natiijo aan ka soo bixin kulamadii ugu dambeeyay ay yeeshaan xukuumadda Soomaaliland xisbiga kulmiya oo isku dhinaca iyo xisbiyada mucaaridka wadahadalka iminka u muuqda kuwa adag oo tanaasul badan aanu ka muuqan Soomaaliland kuma cusba khilaafka dhinaca muddo kordhintu xukuumadii ka horeysay tan iminka talada haysa khilaafka dhinaca muddo kordhintu waxa uu keenay in beesha caalamku ay soo dhaxgasho xukuumadii madaxweyne Riyaale iyo xisbiyada mucaaridka Soomaaliland ee waqtigaasi waxaana ka dhaxqarxay khilaaf xoogan loolan adag oo keenay in tanaasulku daaqada uu ka baxo taas oo sababtay in khilaafyo waaweyn oo banaanbaxyo wata ay ka dhacaan dalka golaha guurtida iminka jooga maaha markii koobaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad ay muddo kordhin sameeyaan hore ay u soo sameeyeen muddo kordhin noocan oo khilaaf sabatay waxaanay keentay in markii ugu horeysay aqalka golaha wakiilada Soomaaliland khilaafkaasi uu saameeyo sanadkii 2009 iyadoo ciidamadii booliska Soomaaliland iyo xukuumadii madaxweyne Riyaale ay isku dayeen inay albaabada u laabaan golaha wakiilada iyadoo mudaharaad rabshado ay ka dhaceen waqtigaasi bal dib aynu eegno jawigii waqtigaasi iyo farka hadal dhex maray xildhibaanadii baarlamaanka Soomaaliland ee waqtigaasi kasoo noqodaba waxaan ku jirnaa xafiiska halkan abla soo doorateen idinkoo ku mahadsan taageerada alla garab taagantihiin waxaan idin sheegaynaa in arrintii ay soo gabagaboobayso labada cisho ugu guddiga loo saaray arrintaa wax ka qabata kadib markuu eegay xaaladda iyo duruufta dalka wuxuu xeeriyey in laysu yimaado laysu tanaasulo fara badan baa iska jirta sidaa darteed labadaa cisho waa iminka loo qabtay waxaan ugu leedahay sida ayay guddigaas hawshaa soo dhamaysaa wixii wala waalidiina soo socodsiiya maanta sida xildhibaanada mucaaridka Soomaaliland ee waqtigaasi ayaa waxay si kulul cambaariyeen xaaladda baarlamaanka la soo gudubtay ay sababtay muddo kordhintu jawigeedu khilaafka muddo kordhintu waa uu sii socotay hogaamiyihii xisbiga mucaaridka waqtigaasi ee Ucud Faysal Cali Waraabe ayaa waxa uu si kulul ugu cambaariyay xukuumadii madaxweyne Riyaale muddo kordhinta ay deedayso waa sidoo hadalka u dhagay madaxweyne ka dhamaanaysay ee sharcigu sheegay waa 29 Oktoobar bawey 27 Sebtembar baan ku ordinay bay ilaahin 17 waxa dhici lahaa doorasho komishanka qabtay wuxuu qabtay waqti doorasho dhacayso bilna waxa laga dambeeyay mandate-ka madaxweynaha maga waxa weeye arrin uu ku mujaxaabinayo heshiiskii ay soo qoreen bulshada caalamku gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland imikana gudoomiyaha xisbiga mucaaridka wadani oo waqtigaasi ka tisnaa jiray xisbiga mucaaridka Ucud ee isna maantaas waxa uu ka hadlay xaaladda dalka isagoo eedeemo u soo jeediyay madaxweyne Riyaale hogaamiye xisbiga mucaaridka kulmiye Axmed Maxamed Silaayo imikana madaxweynaha Soomaaliland ayaa muddo kordhinta loo sameeyay xukuumadii madaxweyne Riyaale waxa uu ku tilmaamay sharci daradii ugu weyneed ee la sameeyo isagoo sheegay in beesha caalamku dhagaha ka fureysatay wax lagu tilmaamay muddo kordhin xaaraan ah oo sida Axmed Silaayo maalintaasi uu hadlayay hadalka u dhagay maamulka maanta jira ee Riyaale ka madaxda ka yahay wuxuu joogay 7 sano bar buu joogay
shan sana loo doortay maamulka dhowr jeer horaa loo kordhiyey xilka qaranka iyo ummaddu inama wada saara xilku in doorashooyinku waqtigoodii ku dhacaan oo lagu qabto isagu qaran ahaan la saaran yahay oo caalamka deeqbixiyayaasha ah iyo caalamka ina taageero mooyaane aan waajibi xil ka saarayn inagaa xilku inama saaro qof inooma saara halka qof tahay qof baa mas-uuliyadda xilka qaranku saaran yahay hadday dhaqaalo tahay hadday diyaargaro tahay nooc kastay u tahay inuu qabto waqtigeeda waayo waa ninka xilka qaranka ugu sarreehaya waa madaxweynaha qaranka su-aasha qulay meesha taalla waxaa weeye madaxweynuhu xilkaa ma gutay mise ma gudan jawaabta anagu waa lahela caddaanka ah ee marag madoontani waxa weeye ilaa hortii inaan waajibkaa gudan oo xilka ka soo bixin oo ku fashilay weeye xalka maanta xalkii baan ka hadlay kordhintii madaxweynaha maanta jooga taasina wax suurtoobaysa maaha sharcigay ka soo horjeedaa maslaxaday ka soo horjeedaa taariikhda Soomaaliya oo dhan bay ka soo horjeedaa waa baabiin dalka iyo ummadda ah waxa imika walku lagu soo gaarayaan in meesha ciidamadii sii xidheen laakiin madaxweyne Rayaale waxa uu ganafka ku dhuftay dalabka ka soo yeedhay Axmed Siraanyo iyo Faysal Cali Waraabe isagoo waqtigaas u arkayay xaalkii wadanku taagnaa mid tamaama waxaanu yiri xukuumaddu markasta iyada diyaar u ahayd sanadkii hore haddii qabsoomayso in la qabto way diyaar u ahayd maalin in lagu daro yaarumahay doorasho in la qabto anaa bilaabay dalka nin doorasho igu faani kara ma jiro doorasho iyo dimuqraadiyad anaa dalka ka bilaabay anaa baarlamankii hore markuu doorashada sharci 2/3 majority uu ku baaskareeyay si ayna doorasho ugu dhicin muddo 5 sano ah aan baarlamanka loo dooran anaa maxkamadda geeyay anoo 62 xubnood oo golaha baarlamanka markaas u dubay haayeen ay weydiisanayeen mar haddaan codaynay 2/3 majority waxaan codsanaynaa inaad noo saxeexdo way sharcigu wuxuu qorayay inaan saxeexo 2/3 majority haddii labada golob ku baas waxa waqtigaasi la magacaabay gudiyo iyo odayaal dhexdhexaadiyay xukuumadda Rayaale iyo mucaaridka Soomaaliland waxa natiijo kama soo bixin iyadoo xaaladdu halkaasi marayso waxa markii ugu horeysay soo dhax gashay beesha caalamka iyadoo go'aamo lix qodob ka kooban la soo saaray waxaana madaxdii Soomaaliland waqtigaasi mucaarid muxaafidba ay si toos ah u aqbaleen go'aanka beesha caalamka dib u xasuuso go'aamadii beesha caalamka iyo xafladii madaxtooyada lagu qabtay horta waxaan ka mahadnaqayaa dadbixiyaasha John Marshall بالجيت ووزارة الخارجية سفير كمان ما عندي حاجة. إن سكوك هي كيران وما تعرف كل شيء. أنا جعلها إلى نلقى بيشي إنه أنت اللي سكوك كده. وحاسة جعلها هاي. وعمرك هو رئيس تاريخ ده. إنه هو قرم يسوي إنه يعتقد إنه شيء. وحاسة جعلها هاي شيء كاسم حي كدم بيا. إلى نلقى إنه وضنه. ونعد بوجه نرتوه فترة. وحقيقة هو محل غيرتها. dadkii ka soo shaqeeyay warqad hadda heshiiskan saxaano oo gudaha iyo dibadaba aad loo shaqeeyay particularly marka John Marshall Ethiopia iyo saaxiibada Nairobi joogada aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ethiopia iyo Mr Marshall ay ka socdaan dawladda Ingiriiska iyagoo ka wakiil dadbixiyaasha hawshaas heshiiska ay maanta saxay oo ay galay oo ay doonayeen inay kulligeen si wada jira iyo si daacadnimo ah aynu u fulino u socodsiino isla markaa anaga waa naga daacad waxaan jecelahay inaanu cadeyno inaan doonayn dalkaas dhibaato dambe ku dhaqaaqo sida hawsha ugu fudud ee dadka inala shaqeeya hawsha inala soconayaan inagoo aan ku kala faa'iidaysan aynu hawsha u fulino oo aynu hawsha u socodsiino si aynu dhaqsi u gaarno in doorasho xor xaala aynu gaarno maanta khilaafka doorashada iyo muddo kordhintu mar kale ayuu beejka siyaasadeed ee Soomaaliland hortimid wali go'aan lama gaarin waxa isweydiin leh Soomaaliland mar kale ma u baahnaan doontaa beesha caalamka oo may soo saari doontaa 6 qodob oo beesha caalamku la timaado oo la mid ah tii 2009 su'aashaasi waxa ka jawaabaya gudoogaanka koobaad ee golaha guurtida Soomaaliland Saciid Jaamac marka hore khilaafku waxaan aragnaa horta khilaafkanu inuu yahay mid la abuurayo aanu ahayn khilaaftii si toos ama wax la isku qabtay aan jirin 130 qodob baynu isku hageenayo inoo dhaxaya haddii kii laga gudbo markaa waxa weeyaan macna la'aan bay noqonaysaa wixii oo dhamay meel ay sharciga ugu taalo komishanka iyo xisaabta intay isu tagaan maalin cayimaya ma jirto waxaan ku shaqeynaynaa waa sharci weeyaan
marka gudoomiye imika wada hadal baa xisbiyadii iyo xukuumaddu furmay weli natiijo lama gaadhin waxay xisbiyadu leeyihiin annagu go'aankii guurtida waan diidanahay xukuumadduna way goshay idinkuna wada goshin yaa iskale ama yaa eedda qaadanaya cidda doorasho dib u dhigtay ama khilaafaadka siyaasadeed ee abuuray anagu cidda dib u dhigtay doorashada eedeeda laannu cidda saari mayno iyadu waaga dambe marka la xisaabtamo bay soo baxaysaa imaa doorashada iyo khilaafaadkan khilaafaadka waxaa leh oo kuwa dayminka wada saddexda xusbi iyo komishanka ayaa khilaafkan iyo craiska waliba constitutional crais weeyaan iyaga ayaa dhaliyay iyagaan ka mas'uul noqonaya wixii ka yimaada iyadoo xaaladdu imika halkaasi taagan tahay oo weli wax natiijo aanay ka soo bixin khilaafaadka dhinaca muddo kordhinta haddana wararka soo gaadhaya Star TV waxay sheegayaan in wufuud ka kala socoto beesha caalamka sida dalalka midowga Yurub iyo Mareykanku 48 saacadood ee soo socota Hargeysa ay soo gaari doonaan iyagoo u imanaya wada hadal ku saabsan dhinaca khilaafaadka muddo kordhinta iyo isfaham la'aanta soo food saartay xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaridka khilaafaadka dhinaca doorashooyinka Soomaaliland ee 10 sano ugu dambeeyay inta badan wuxuu ka imaadaa go'aamada ay soo saraan golaha guurtida ee Soomaaliland aqalkan imikan taaganahay waa aqalkii golaha guurta Soomaaliland go'aamada dhinaca muddo kordhinta ay soo saaraan wuxuu sabab khilaafaad weyn oo dhinaca siyaasadda waana inta badan shacabka Soomaaliland ay u baahan yihiin in xal laga gaaro si guurtida iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland la isku waafajiyo xamse cali bulbul Star TV Hargeysa